السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muuqaalkeena waxaanu ku baran doonaa mase domain loo iibsado ayaynu ku baran doonaa insha Allah, gaar ahaan waliba sida loogu iibsado blogger website sida loogu iibsado ayaynu ku baran doonaa insha Allah. marka waxyaalo lagaga baahan yahay ayaa jirta. marka waxa lagaga baahan yahay number 1 waxa ah inaad haysto Mastercard ama Visa card ama crypto. qaar baa crypto aqbala, laakiin inta badan waxa wanaagsan inaad haysto Mastercard ama Visa card. marka waad helaysaa Mastercard iyo Visa card wadankeena waa laga bixiyaa, wadanka dibadiisa joogtana waa okay weeye. marka already wada haystaa hosting waxa la yiraahdo oo Google ba ku haya mar hadaad ka samaysatay blogger website ka samaysatay website-kaaga. haddaba saynu domain u iibsano, marka inaga waxaan iibsan doonaa, waxaan ka iibsan doonaa insha Allah kan la yiraahdo Namecheap oo aad u jaban $9 iyo waxoogaa buu noqon doonaa, kama badan doona inta insha Allah. GoDaddy soo kaleesna waa ka labaad ee ugu jaban uguna fiican, waad ka iibsan kartaa isagana. laakiin hadda waa yar qariyoobay, meelaha $22 buu maraya, $21 meelahaas maraya. haddii inta ka soo gudubno haddaba sida iibsan lahayd ayaynu guda galnaa insha Allah. keenan hoyiga crypto ayaynu u samayn doonaa oo aan lahayn wax domain ayaynu domain u samayn doonaa, waana isku mid kan iyo kaynu ku samayn jiray casharada hadaynu ku samayno labadaba waa isku mid. markaas isku mid ayaa insha Allah in loo marayaa. meeshaas ay ku qoran tahay inta dhexe ay ku qoran tahay blogspot ayaynu ka dhex qaadi doonaa insha Allah, oo .com kaliya ayaynu ku soo koobi doonaa, waxa dabana waan ka reebi doonaa. marka haddaba si aad u iibsato waxaad samaynaysaa, waxaad si toos ah u timaadaa Google si toos ah u soo gal, kadibna waxa ku soo qortaa Namecheap ku soo qor. Namecheap oo soo qormaya oo company uu noocaas yahay ayaad ku soo dhufanaysaa waxa calaamadiisu Namecheap. marka soo soo dhufato kadib waa kana u sareeya oo ku soo dhufanaysaa. marka soo soo dhufato wuxuu ku geyn doonaa dashboardka Namecheap. waa kana hadaad u baahan tahay inaad transfer domain ama website aad sameynayso halkeeda. hadda laakiin domain baan iibsanaynaa. marka domain iibsanayso bartan ayaad ka bilaabaysaa, xagga dambe ayaad registration kaagana ka samaysan doontaa. halkan ayaynu ku qoraynaa magaceena. halka haddaan ku qorno hoyiga crypto tusaale, haddaan ku qorno hoyiga crypto oo website-keenan ah .com na xagga dambe waliba ka sii raacay, haddaan raacin isagaba ku raacin doona. kadib marka soo soo qorto magacaaga iyo .com kaliya waxaad ku dhufanaysaa calaamadda searching-ka. marka waa ku search gareynaya. okay sana ku soo baxaysa markaasi wuxuu ku sheegay inuu available yahay horta number 1 oo la heli karo. marka qiimihiisa waad arkaysaa waa 9.58 per year waa sanadkii intaasi. marka hore 13 wax buu ahaa bay yiraahdeen, waa soo yareynay. marka 9.5 ayuu noqonayaa. hadda halkan ayaad ku dhufanaysaa si aad hore ugu sii socoto. okay marka san ku soo baxdo shaashadan ayuu ku saarayaa. kadib waa kan ku sheegay 9.76 kolka wax yar oo kale ayuu ku darsanayaa oo uu fee ka dhiganayaa isagu. kolka intaas uu noqonaysa totalkeeda guud waa 1 item. iska ilaali hadda laba jeer ku celisato item noqoto way ka badan doontaa. marka meesha la iskaga saaran xagga dambe ayaynu ka eegi doonaa. halkan ayaad ku dhufanaysaa check out ayaad ku dhufanaysaa insha Allah. waxaad samayn doontaa insha Allah marka san ku soo saaro waxaad iska hubsan doontaa number 1 in domain-kaagu hal domain yahay. haddii halkan ay wax badan ku jiraan calaamadda kale oo iskaga qaadi doontaa insha Allah. laakiin hadda waxaynu arkaynaa inuu 1 domain yahay oo wali 1 yeera ayaynu arkaynaa. markaasi waa hoos soo degaysaa fiiga rabaa ka intaas weeynu ka goosanayaa. hoos soo deg privacy-gu waa inuu ku furnaadaa, kanna waa inuu ka xidhnaada. automatic renewing oo macnihiisu yahay sanadka markuu dhamaaday saasi automatic Mastercard-kaaga ama Visa-kaaga uga goosan doona. kolka lama baahna inuu si automatic u goosto, ma wanaagsana. hoos baad soo degaysaa, waxa kale waad iska soo dhaafaysaa insha Allah. waa kana meesha aad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay confirm order ku soo dhufo. meeshan ayuu ku keenayaa. haddii aad hore uga lahayd account login baad oran doontaa, username-kii waxaad ka shanto password-ka aad gelin doontaa. laakiin haddaan hore u lahayn hoos baad soo rdigi, meeshan ku qoran tahay create an account ayaad iman doontaa. qaybta midig ayuu ka soo baxaya haddaad isticmaalayso Windows ama computer. halka horeysa username-ka ayaad ku qoraysaa. tusaale hadda mid baan iskaga qoranayaa tusaale ah. aniga already waan diyaariyay domain-ka oo waynu iibsan yahay. waxaan iskaga qorayaa kadar 1 baan iskaga qorayaa tusaale. marka isaga sheegi doonaa hadii la qaatay password-kaas ayaan ku dhufan doonaa. kabacdi meesha password waxaad gashataa password iska adag gasho oo ilaa 8 xaraf oo adag ka kooban.
meesha ku xigta mar labaad ku celi passwordka. Okay, inta markaad qortid insha Allah waxaad samayn doontaa first name-ka ayaad qori doontaa ama magaca koobaad. magaca koobaad ay qori doontaa, last name aad qori doontaa, magaca koobaad iyo magaca labaad ba qori doontaa. inta badan waxa fiican ka Mastercard ku qoro ama Visa card-ka ku qoro inta badan. halkan Gmail-kaaga ayaad gashan doontaa insha Allah. kaad ku isticmaashaada ama ku kala ahaado wax macna ma samaynayo. Okay, markaad kalka ka soo baxdo waxaad ku dhufan doontaa insha Allah adigoo meel kale tagay meesha ku qorantay create account ayaad ku dhufanaysaa. Okay, automatic dad baan inta lagu save gareeyo save fadlan sadaan u baahnayna way caadi waa iska dhaafi kartaa. hadda meeshan ayaa la ka bilaabmay halka magaca iskaga qoro waliba waxa isku fiican inaad iskaga qorato inaad iskaga qorato ka ayaa kuugu qoran website-kaaga job title-ka iska soo dhaaf. kadib address 1-ka meelaha waxyaalaha lagaga baahan yahay meesha aad joogto ku qoro Soomaaliya meesha doonto ka joog address-ka koobaad iyo address-ka labaad isaga qoro. marka address-yadu waa sax inay ku ahaadaan. aniga address ayaan iska gashanayaa markaasi aan hadda aan muuqaalka ku diyaarinayo. marka meesha joogto city-da caasimadda ayaad ku qoran doontaa, state-ka waxaad ku qoran doontaa meesha aad joogto, gobolka ayaad ku qoran doontaa. meesha zip-ka ku qoran tahay nan iskaga qorinta badan ma lihin inaga wax zip code ama wax postal code kolkaan nan baa la iskaga qoraa. okay, meesha ay ku qoran tahay phone number-ka ku qor meeshan +2-gana 252-ga Soomaaliya ka dhigata Soomaaliya joogto hadii kalena waxaad ku qoran doontaa meesha wadanka aad joogto furiyaysa. okay, phone number-kiina waan geliyay. okay, meelaha tagasti waxa ku qoran tahay iska daa waxba ha gelin iyaga iska soo dhaaf phone number-kaas kaaga filan. email address-kiina waa inoogu jiraa. ka bacdi meesha mar labaad ayuu ku xasuusinaya total-ka guud waa intaas ku oranaya. ka bacdi waxaad ku dhufan doontaa insha Allah continue markaas. kabacdi mar labaad wuxuu ku oranayaa address-kaaga ma ku save gareeya marka aad xor waa inaad save gareysato iyo inaad iska deyso. markaad inta laga yimaado hoos soo deg wuxuu ku oranayaa meeshan iyada size iskaga daa wuxuu ku xasuusinayaa address-kaaga markuu ku xasuusiyo haddana dib uu ku xasuusin doonaa meelaha lagala soo xiriiri karo hadii lagu baahdo. kor iskaga soo soco meelaha information-kaaga ayaa ku qoran information-kaaga ayaa ku qornaan doona waxba ka bedelin iska soo soco. okay, hoos soo deg markuu hoos soo degto meeshan wuxuu ku sheegayaa haddaad ku dhufato tigta saarto macnaheedu waxa weeyaan waxaad xaftiyaysaa information-kan meesha gashaday si aan mar labaad haddana u baahdo aanan u gelgelinin. okay, hadda halkan ayaad ku soo dhufanaysaa ay ku qoran tahay continue ayaa mar kale ku dhufanaysaa insha Allah. okay, markaad sidaas ugu soo dhufato wuxuu ku keeni doonaa system-kii aad ku bixin lahayd hadaba lacagta. meeshan waxaad ku qori doontaa meeshan ay ku qoran tahay card detail iyada add new baad oran doontaa yacni waa card cusub ayaan ku soo darayaa add new-da uu yahay ayuu ku sii ahaan doonaa iska daa. halkan waxaad ku qortaa card-ka magaciisa meesha ay card name ku qoran tahay Mastercard ama Visa card-kaaga magaciisa ku qor. meeshan ka hooseysa taabo kadib waxaad ku qortaa number-kiisa meesha ka horeysa number-ka dheer baa ku qoraysaa. halkan waxaad ku qoraysaa bisha uu dhacayo ayaad ku qoraysaa. for example haddaan tusaale ka dhigano aniga ayaa ku jira oo hore u soo qabanaya markaasi halka waxaad ku soo qoraysaa Mastercard-ka ama Visa card ama waxda istid ay ku soo qoraysaa halkaasi. halkaasna waxaad iman doontaa waqtigu dhacay ayaa halkaana ayaad soo gelin doontaa oo saas kale ayaad tusaale kala qaybin doontaa. oo bisheeda horeysiin doontaa xagga dambana sanadka ayaad marin doontaa. halkan CV-gana waa saddexda number ee xagga dambe ka qoran Mastercard-kaaga ayaad kan ku qoraysaa. halkan ayaad ku qoraysaa saddexda number. halkan waxaad ku qoraysaa xilliga uu dhacay halkan card-kaaga ayaad gelinaysaa. okay, inta markaad soo geliso hoos baad soo degaysaa. markaad hoos soo degto halkan waa iska soo dhaafaysaa waxaan waad iska soo dhaafaysaa dhamaantood waxba ugama baahnid xagga information iyo waxba ku sheegayaa. ka bacdi markaad timaado waxaad ku dhufan doontaa okay, meesha hoose marka ay continue ayaad imanaysaa ku dhufanaysaa. hal mar baa ku hadhi doonta oo xaggan hoose kadibna meesha ku qoran tahay continue marka ku dhufato waxa ku soo bixi doonta ma hubtaa oo shuur ma tahay bay baad ku dhufan doontaa. ka bacdina maraad ku soo dhufato wuxuu ku keeni doonaa shaashadan ayuu ku keenayaa markaas insha Allah. information ayaa ku soo bixi doona waxaan iska dhaaf wax macluumaad hadda sameynaya maaha
kan mar dambe ayaan ka hadli doonaa hadda waxaan uga baahanahay malaha markaas markuu halkan ku keeno insha Allah waxaad ku dhufan doontaa saddexda ili ku dhufo hadduu ku balaaran yahayna waa okay hadda wali wayna balaarsana ayaa qurux badan markaas ayaan si fiican domainka u arkanaa marka ayaan desktop ka dhiganaa saddexda ili ku soo dhufo hadda desktop isticmaalna waa okay halkan ayaad ku dhufan doontaa insha Allah ay ku qoran tahay desktop site okay shaashadiisu noocan ayay u eg tahay markaasi insha Allah waxaad iman doontaa meesha ku qoran tahay domain list okay markaad ku soo dhufato domain list san ayuu kugu soo bixi doonaa insha Allah markuu san kugu soo baxo waxaad sameynaysaa meesha ku qoran tahay manage ayaad ku dhufanaysaa hoose meesha yar hoose manage ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa insha Allah markaad manage ku soo dhufato okay markaad manage ku soo dhufato page kan ay ku saari doonaa page kan meesha ay ku qoran tahay ku qoran tahay saa usoo kala fogeysaa dad badan laba faro isticmaal meeshaasi basic ah ku ahaato name basic DNS kaas ka ahaato halka ku daa wixii inta ka hoosay iska daad waxba ka bedelin okay waxaad sameyn doontaa insha Allah meeshan qaybta yar buluuga ah meesha yar falaadha yar hoos u jeeda ee koorna ugu xigta ayaad ku dhufan doontaa insha Allah marka soo ugu dhufato kadib waxa ku dhufataa meesha ku qoran tahay advancing DNS okay marka soo ku soo qabto waxaad sameynaysaa labadan waa iska saaraysaa ka iyo kaaba iska saar labadaaba iska saar waa wax hore oo meesha ku sii jiray marka waa iska saaraysaa kan iyo ka labadaaba iska delete garay labada calaamad delete ku qorin labadaba taabo haddana delete ayaan ku dhufanayaa kadibna yes baan odhanayaa ka kale waa delete garaynayaa kolka kuwa waxaan ku soo darsanaa bloggerkeena ay ka soo qaadanaa hadda waxaan ku noqonaa website-ka marka halka mar website-ki blogger-ka dib ugu noqo kadib shaashada blogger-ka soo furo shaashadan kale ku furnaatay iyadaas ka xidhin kadib waxa ku soo dhufataa blogger-kaaga meesha settings-ka ku soo dhufo kabacdi waxaad timaadaa meeshan ay ku qoran tahay halka korkeeda custom domain ka taabo halka custom domain ku qoran tahay taabo kabacdi meeshan waxaad ku qoraysaa sida ay ugu qoran tahay domain-ka lagu siiyay sidoo uu qoran yahay marka domain-ka hadda eegno sidoo uu qoran yahay domain-ka la siiyay domain-ka waa kaas uu qoran yahay waa xurufta asaas uu qoran yahay sida uu qoran yahay ee qoraysaa sida uu qoran yahay ama copy baad ka qaadanaysaa inta xajiso haduu ku noqon waayana sida uu qoran yahay ee qoraysaa hoyga crypto sida uu qoran yahay baan qoray insha Allah waxaan ka horeysiinaya keliyata 3w ayaan insha Allah ka horeysiinaya oo small baan ka wada dhigayaa w-yada yani waan yaraynayaa xurufaha marka 3w baan ka horeysiinaya kadibna dot baan odhanayaa kadibna waxa uu qoran yahay waa sidaas hoyga crypto marka koobiga ayaa ku roon saanad u khalkhaldin hoyga crypto.com saas uu qorayaa filaya hoyga crypto.com saas uu noogu qorayaa kadib marka waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay save marka save taa ku soo saaro xagan save labaad hasiin ilaa inta ku qorayso xogtan meesha aad ku qorayso okay haduu ka noqdan waad soo ceshan kartaa waad mar labaad ku celin kartaa ugu horeyn waxaad qaadaysaa meesha 3w ayaad qaadaysaa 3w saa u xajin kadib copy ku soo dhufo kadib ku soo noqo page-kaaga kale ee uu kaaga furnaa domain-kaagu kadib meesha ay ku qoran tahay add new ayaad ku dhufanaysaa add new record meesha caasi ku qoranta ku dhufo kabacdi sana ay ku soo baxaysaa meesha record-ka meesha air record ku qoran tahay waxaad ka dooranaysaa waad ku dul dhufanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa waxoogaa koriisa ugu yarjiid xag hoose ku jirta waan filayaa waxoogaa koriisa ugu yarjiid kadibna waxaad ka doorataa C9 record-ka taay ku qoran tahay C9 record ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa wata magaciga xagga sare hadda inooga muuqda meesha horeysa waxaan gelinaynaa 3w saasoo yar xajinaynaa waxoogaa afwan xagaasaan soo yar xajiyay waxoogaa 3w ayaan soo gashanayaa meesha ku xigta iyana waxaan soo gelin doonaa insha Allah waxa ku xiga oo ah meesha waxa ku www description ba ku xiga description-kaas kama soo qaadanaysa meesha ka horeysa ghs.google.com xataa wad qori kartaa saa ay qoranta qori kartaa intaas laakiin soo qaadaysa u fiirso intaan soo qaadanayo xaga koran baxaya intaas soo qaadanaysa oo marka labaad intaas soo qaadanaysa marka koowaad waxaan soo qaadanay 3w description-ka waa ka soo boodnay oo inoo sheegay description-ka kadibna saddexdaas waxaan soo qaadanay gh taa ka bilaabmaysa ilaa .com ta laga gaarayo copy soo dhadbitayana kadib ku soo laabo website-kaaga meesha ay target ku qoran tahay ku dhufo ku xigta meesha hore kadibna saa ugu soo paste gare kadib marka saa ugu soo paste gareysa waxaad ku dhufanaysaa save change
okay kii koobaad waan ku xareynay mid labaad ayaa isagana lagu xareynaya insha Allah haddana waxaan odhanaynaa add new baan odhanaynaa insha Allah add new da hoos mar labaad ku dhufo okay add new da sidoo kale iyana aan u soo qaadno waxa uu haray blogerka ku soo noqo marka add new tiraadid okay iyana waxaad soo koobiyeysanaysaa inta labaad waa halkaas qabanaysaa xaji intaas sadeetana soo koobiyeysanaysaa waxaad iskaga dimaada calaamadda ayra koomada ee s-ta ka dambaysa iskaga imayada koomada iskaga imo kadib copy dhe intaasi marka tiraad kadibna ku soo noqo meeshii domainka inooga furnaa sidii hore kale xagga sare recordingka waa inaad soo doorataa iyana waa inaad soo doorataa xaggan kor u yarjiid meesha CNAME record ku qoran tahay iyadana soo dooro labadooduba CNAME record iyo CNAME record okay kadib meesha host ku qoran tahay hoosteeda ayaad xajinaysaa saas aad xajinaysaa kadibna copy-gaasita ayaa ku dhacaya wakaan ani s ba u dambeysay m na u horeysay okay meesha target ku qoran tahay kan u dambeeya ayaan u soo qaadanaa isagana oo waa kana waxaan u soo koobiyeenaa halkan isagana uga bilaabanaa meel halka okay kana halkaas uga bilaabanaa gv meesha ay ka bilaabayso ilaa .com ta laga gaaro oo soo koobiyeenaa isagana gv ilaa .com ka isaga highlight saartay si fiican u eegin highlight kala saarayo waa intaasi kadibna waxaad odhanaysaa copy ku dhufo inta marka copy soo ira ka bacdi waxaan ku soo noqonayaa meesha targetka ay haray baan deetanay xajinayaa waxaan hore meesha yaalo iska soo baxaya laakiin waan xajinayaa kadibna intaasan soo gelinayaa kadib waxaan odhanayaa save changes ka bacdi domainkiga hadda waa la qaaday oo imika waxa uu ku jira namecheap.com ayaa hadda inoo diyaar ah waxaan ku dari doonaa 4 number oo isku numberna isku dhawaa oo iyaguna xagga redirectiga ka qayb qaadanaya okay iyagana saan ugu darno waxaad imanaysaa blogerka ku noqoso saasa kadibna intan iyadana xaji si lagu siiyo numberada redirectiga ha in time kan koobiyay iyadana soo koobiyay sanu kadibna intan koobi noo soo saar waxaan soo qaadanaa qayb kale marka namecheap la tagin intaasi u dambaysa meelaha iska soo furo dashboard cusub oo saddexaad iska soo furo tab cusub oo jeedo saddexaad iska soo furo kadibna koobiga hadda sidanay google-ka ku soo basti gare kadibna search dhe waxaanu siin doonaa 4 number oo redirect number isa oo IPS ay yiraahdaan ayana siin doonaa insha Allah waa kuwan 4 number waa iskaga wada mid dadkoo dhan waa isku mid 4taasi number waxay ku kala duwan yihiin kaliyaata halka 230 ka horeeya kan ka dambe 430 noqonaya ku xiga 630 ku xiga 630 inta kale waa iska mid oo sareeya ay marka koobiyeysanana hadii koobi niraahdo ka sareeya ka bacdina ay ku noqono namecheap keeni kadibna ay niraahno add new okay markaad add new ku soo dhufato kan xagga hore ka dooranaysi name kama doorana hadda waxaanu dooranaa meesha u sareysa ay ku qoran tahay a record kaas ay dooranana ama a record kaas ku diisanaa sare kadibna halkan ay ku qoran tahay hosting waxaan gelinana bin gelinana halkaas u fiirso ama eeda noocan ah ayaan gelinana markaan geliyo halkan IP address ay ku qoran tahay waxa ku soo koobiyeenaa numberkii kadibna best ayaan odhanayaa okay waxa numberku markaasi numberkaasi hadda waa keedii dhituga ayaad ugu soo horeysiinaysaa waxaad ugu horeysiinaysaa ka teed dhituga kadib save change leh ka bacdi mar kale ayaad haddana odhanaysaa add new aad odhanaysaa waa 4 jeer ayaad add new odhanaysaa kadibna 4 number ayaan ku tusay isku xiga ayaad insha Allah gelinaysaa okay kan xigana sidaas la mid ah sameeynaa ee record binoo taagan yahay halkan ayaan iyadana ban gelinana halka ku xigta IP address-ka inta kii hore koobiga soo geliyo ayaan ka yar masaxay halkaasi oo ka yar dhiganaya TED 2 meeshaas ah uma TED 4 ka dhiganaya afwan TED 4 ayaan ka dhiganaya oo ka hadda TED 4 baan ka dhigay halkan automatic ku ah toose save change baranaya afartaba sidaas isku mid ayaad soo gelinaysaa numberanta ma kala duwan haddana waxaan odhanayaa mar kale add new record okay xaga sareysa hay ahaato record hay ahaato meesha ku xigta baan gelinayaa meesha ku xigta waxaan gelinayaa kan u dambeeyay baad doonto ii geli kolkan eeg wana soo koobiyeysan kartaa waana sida aan u gelinayaa waad u gelin kartaa 36 baa haba filaya 36 geli okay iskana hubi mar walba inay saas ugu xigaan 32 34 36 38 ayay noo haray hadda add new kala ku dhufan
بعد حاجة سريع وإير ريكورد بقيت هاي ماشي إنه حنسوق نقط halkaa u dambeysana 38 ayaan ka dhigaya insha Allah kadib save change baan odhanayaa hadda saas uu domain-kani inoogu diyaarsan yahay waxaan iman doonaa hadda bloggerkeena imanana markaad halkan timaadid xusuusnow ha ka tegin waxaad odhanaysaa save inta aad u xusuusnow save ayaad odhanaysaa hadda inta ku horreysay wax save maynaan odhan xogaayin ka urursanay meesha hadda save ayaan ku dhufanaya insha Allah okay hadda waa kaasa website-kayga noocaas ayuu noqon doonaa insha Allah marka waxaad furaysaa meesha ay ku qoran tahay redirect domain meesha ay ku qoran tahay halka dhowr saac ka bacdi isaga ayaa ku connect gareyn doona ama maalin ka bacdiba ama inta badan dhowr saacadood ba qaataa maalin waxa qaadato isaga si toos ah website-ka kugu soo diin doona okay sano soo saaraya laakiin saacada ka bacdi isaga ayaa si toos ah kugu xiriirin doona insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.